kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal xalay magaaladan Kolin waxaa ka dhacday xaflad aroos iyo meher isugu jirtay. Xafladaasi markii ay dhamaatay ayaa waxaa xafladda rabshad ula yimid niman afka soo duubtay. waxaan haddaba arrintaasi ka wareysay Maxamed Bashiir Muxiidiin oo isagoo arrintaasi goobjoog u ahaa. ugu horreyn Maxamed, waxaan jecel ballan nooga waranto arrinkan iyo sida uu dhacay. aad iyo aad baa u mahadsantahay Maxamed. bardaan yatan ku xayir oo rama arrinta shaqaaleetoona dhacday maaragtay waa arrin maaragtay runtii aad iyo aad noogu cusub aan hore u arkin. waana arrin maxay tahay runtii dadkii ma garanaysaa shoog iyo layaab ku reebtay. shalay maxay xalfadii arooska halkan ma garanaysaa ka dhacday Colin ayaa maxay tahay rabay galayna xaflad markii arooska ka sii dhamaanayay inaan iyo faham meesha tago aan maxaa lahaa bal wixii dadka qaxaynaya soo qaxayo. laakiin anoo jid ku soo jira ayaa waxay tahay soo waxa lagu yiri laba nin oo afka duuban baa albaabka hortiisa taagan bal markaa kaale bal beereeg waxaan meesha kala kulmay markaa laba nin oo maxaa lahaayeen hagaasi maartay nimankan hooliganka wax hore ma soo maray yara maartay afka lagu dubta soo ku duuban oo meel taagan nimankii waxaan siir bal waxay rabaan baleego waan ku yara dhaqaaqo mid markaa xoogaa la moodo gangster oo kale ma garanaysa ayaa igu soo yara dhaqaaqo markaa xoogaa dagaal inuu la dagaalamo rabay. laakiin waxaan muujiyay inaan aanu dagaal yahay rabin ma garanaysaa laakiin aan arrintoon ma garanaysaa wixii ma garanaysaa xal ku jiro yara sameeyo baan ku wuxuu yiri meeshan annaga u talina annaga mas'uulka ah. marka ma afdalish buu kugula hadlayaa maya ingiriisi jaban oo ma garanaysaa isaga laftiisa ingiriisi ma garanaysaa dee aanu u qasbayo. waan gartay ayuu ula yara hadlay markuu intay ugu yiri no problem baa ku yiri waa iska noqda halka anda maxay tahay xagan dambe magaalada jeebka dambe ayuu ku hayaa marka anigu waxaan garan waayay inuu balmiti ku hayo inuu baaskood ku hayo inuu ma garanaysaa anigu absan iyo ma garanay marka saas awoodeed baan waxaan siiri waxa arrintu ku sahlantahay inaan dhaho no problem hadii iska dib uga korto. waan gartay saa markaan sameeyay gaarigii waxa hore ugu yara dhaqaaqay iyagina dib bay u yar noqday meel yar baarkin soo taagay labadii nin. waan gartay in yar marka cabaar la taagnaa waxaa la lahaa nimankii ma garanayo waxay aqoonsadeen ma garanaysa dib bay u noqdeen guri bay galeen gurigii waxay ka soo qaateen markaa midna toosh buu soo qaatay midna baaskood buu maaragtay xataa maaragtay suunka soo gashada. waan gartay arrinta markaan aragnay waxay tahay yara xuntahay carruurtii meesha joogay wixii way xaroodeen inabadii yara dhalinyarada joogay baa meesha albaabkii ku xiray adigoo markaa askartii la hadlayo meel gaari ku yar baarki gareeyay. markaa telefoon baad dirtay miyaa askarta la hadashay booliiska? telefoon baan diray haa waa waxaan siiyay arrinta kama farsan mise waxay tahay booliiska. marka anigoo booliiskii la hadlay ayay arkeen way igu soo dhaqaaqeen. anigu markaan booliiska la hadlay igu soo dhaqaaqeen ma arkeen baaskood yaxsitaan laakiin labada nin aan la hadlay inay igu soo socdeen baan arkay waxaan siiyay markaa mala inta dhaqaajin la gaariga iska taagnaado bal waxay ku dhahan eegti mar hadda nimankiina qadka ku jiraan. waan gartay mid baa ku xoog buu dhuftay tooshkii buu yara waadiyay aan waxaan ku markaa noo noostay waxa la fiirada jeen ku yiri kala albaabka gaariga xaqiisa hore ayuu soo taaga baaskood buu tusay. waan gartay markii soo wareegay ninkii kale oo aniga markaa xoogaa ay tuqul garanaya ayuu isna soo agtay qorigii waabay soo ku hanjabay kii kale. waan gartay qorigii markuu cabeeyay maxaa lahaa sida maaragtay kelmadii wuxuu yiri maxaa lahaa askari waxa wax baan fahmay inuu leeyahay ma waxaan ku yiri nimanka qad ku jira laakiin telefoonka iska siiyay tiisaan oo arkeen qad ku jira inaan askarta wacayo. waan gartay marka intay u sameeyeen baa maxay dib uga gurteen marka gaarigii xoog albaabku soo xireen xoogaa kelmad yaro maxaa lahaa nimankan badanaa maxaa la booliska ismaalaan ayuu kelmad buu yiri kelmadii markuu yiri markaa waan gartay nimanku inaanay ahayn isto qubara kale laakiin boolish yihiin. xaga ma garanaysaa anigu darawalkii ma fadhiyaa albaab kale furay ma ogtahay albaabkii kale dhanka kale ayay fureen gaariga. marka kaase markaa ugu dhahay maxaa lahaa sida ugu dhaqso meesha uga dhaqaaq haddana maxaa lahaayeen markaasi kelmad yar boolish ay igu sii caayeen markaa albaabkii qab ka soo siiyeen. waan gartay qorigiina markaa waa igu sii yara waabinaya markaa aniguna maxay tahay gaariga saaray waan dhaqaajiyay. waan gartay oo de aan iyagii waxay tahay u muujiyaan ka tago nin maxaa iyagii de ma garanaysaa si aan waxay tahay qori wax igu soo ridin. waan gartay dhaqaajkan dhaqaajiyay iyaguna dib u noqdeen aniguna maxaa la hadee askartan ku hagayay markaa waan soo wareegay markaa dhinaca kale ma garanaysaa baylabay ayaa soo taagay hadana. waan gartay ilaa intaa waxaan la hadlay askartii markaa inta soo socdeen waxay ugu dhawaa khad ku jir marba noo tilmaamay meesha joogaan. waan gartay kii baaskoolada jiisitay ayaa waxay arkaan oo meel taagan. waan gartay way soo qabta xaggayga u soo dhaqaaqay. waan gartay doorka waxaan siiri deeg maxaa lahaa nin markii hore ku hanjeedo baaskoolada ku cabeeyay doorka haduu ku arkayna maartay wuxuu dhandhasayna askari xal hadlayo waxaan siida kale kugu tirin karaa ma ogta. waan gartay
xagga iyo violet baan iska daa xagga dhaadhac wadada markaa waa ka dhaqaaqa waan gartay intaan sii socdayna askartii oo lalisaba timi markaa harkaasa maxay tahay ma garanaysa iyaguna malaha yaro dhuntiina markaa wixii xaaladdu intii kadib wixii ka dambeeyey meel ku dambeeyey waan gartay in kolley booliisku waxaa laga sheegay in lasoo xidhiidheen ururka soomaalidu ay weydiiyeen in dhacdadan oo kale ay hore ugu dhacday waana weydiin doonaa guddoomiyaha jaaliyadda laakiin waxaan jecelahay maxamed inaan ku weydiiyo saacaddu imsadii bay ahayd xalay xilligaas haddaan qiyaaso adigu ilaa cabaara afartii meelahaas ilaa afartii barkii meelahaas ahayd baan malaynaya subaxnimo saacadda subaxnimaha marka adigu waqti inkastaan waqtigaana si fiican usii eegin marka meesha xaflad aroosa ka dhacday xilligaasina wuxuu ahaa xilligii ay xafladu dhamaatay marka goobta ayaa joogay ku sugnaa waxa ku sugnaa waxaa la dumar ma garanaysaa xalfada dumar baa joogay marka dumarka miyay usoo galeen iyagu nimankan afka xiranay ha markii intaan nimanku albaabka usoo taagin waxa markaa xari waxaan dhahnaa maxaa lahaa bodyguard baan nahay ku tihin annaga markaan anu markaan nimina de aniga markaa arkaan ninahay markaas anigina iska leeyahay maxaa lahaa bal isaga kanu waxa juglay ma ogta waan gartay xaga juglayntii markaa inama kala yeegna jiro waxay tahay dadka soo doonayay yeegna meesha iyo laakiin rabshad waxba aan muujin meesha dadka soconayay magana saan badnay laakiin dad saddexda ba koina maxaa lahaa inamada ma yaro farq tirisa waan gartay adigu markaa inay dees dhihiin markaa inaan dadan u wacday iyo inaad maxaa lahaa adigu ma garan karo waxay markii dambe waxay tahay arrinta waxay rabeen ma garanaysaa laakiin arrin runtii aan u qaadan waayey waayo haddii maaragtay anagu meesha dhibaatay wax ka yaraad laga sameyn lahaa buuqay ma lahaa oo cid la waa fahmi karnaa markaa dad wadada qabatiin moogta waan gartay harka meel dhibaata ka iman karna ama dadku muujiyeen dhibaato dadku kaashikiya ama kusoo dhibaya may jirin ma garat waan gartay si yaro wanaagsan oo aad ugu sharaf leh waxay wax kasta u kala socdiin marka nimankan waxaan garan waayay waxbay soo yara qaatiin mise ma meeshay waxay tahay niman waxay laga yaabaa in suuqa wax ku gadan niman yihiin oo u qaateen anaguna niman dad meesha wax ku galgadan xalfad ku dhiganayo wax gadanaya ma garan karno wax iyaga ma garan karno siyaga fikirkooda waxa ku jiray iyo niman cunsuriin waa dhici karta wax kasta ma garanayso adduunka ku arkaysa moogta waan gartay marka iyaga xilligan xafladda la xidhayay unbaa la arkay may jirtaa cid aragtay intii xafladdu socotay nimankan ma jirin aniga laftigaa meesha hore u joogay maxaa laas lahaa ma garanaysaa hadday dad u baahdeen xaawisi markaa baarka gaariga wii taagnaa ma garanaysaa saacadii hore moogta waan gartay marka intaa qof dhibaato iyo waxaa to cid maxaa la meesha ma joogin booliiskii markii aad wargelisay teleefonkaaga way hayeen dib ma kula soo xidhiidheen may waxay gu wixii farfaahiyaan uu kaaga baahno kula soo xidhiidhnay haddaan la yidhaahdo waan gartay maxamed aad iyo aad baad mahadsan tahay waxa maxamed bashiir muxyidiin oo isagoo xalay goobjoog ahaa xafladii arooska arrintii burcadnimada ahayd ee nimankaasi ay ku sameeyeen aad baad maxamed mahadsan tahay arrintii aad la wadaagtay